الرحمن الرحيم waxaan idin akhrin doonaa mabaadi'da siyaasiga ah ee madasha xisbiyada qaran maanta oo ay bishu tahay 7 bishii 11aad 2019 madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen 6 xisbi siyaasadeed oo ah tallaabo hore socod loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda iyo hanaanka siyaasadeed ee dalka iyo ilaalinta midnimada madaxbannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed sida ku cad qodobka saddexaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah madasha xisbiyada qaran waxay u taagan tahay ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed talinta iyo sareynta sharciga cadaalad bulsho iyo mid siyaasadeed oo ku dhisan dastuurka iyo xeerarka dalka kala madaxbannaanida awoodda sharci dejinta fulinta iyo garsoorka oo leh hanaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan sida uu xeerinayo qodobka 11aad farqadiisa koowaad dastuurka ku meel gaarka ah madashu waxay aaminsan tahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan iyagoo aan loo eegin lab iyo dhadig xaalad bulsho ama aragti siyaasadeed hayb baahiyaha gaarka ah xirfad afguri xuquuqda iyo waajibaadka ay u siman yihiin sharciga hortiisa sidaa daraaddeed maadaama ay jiraan dhacdooyin iyo xaalado soo noqnoqday oo muujinaya in laanta fulinta ee dawladda ay baal martay mabaadi'daas asaasiga ah ee dastuurka iyo sareynta sharciga taas oo halis gelinaysa geedi socodka dawladnimo ee loo dhan yahay sidaa daraaddeed madashu waxay soo jeedinaysaa arrimaha hoos ku xusan qodobka koowaad midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed midnimada dalka iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed waa lama taabtaan lamana kala qaybin karo madashu waxay ka shaqaynaysaa ilaalinta iyo dhiirigelinta midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaasna waxay ku baaqaysaa in dawladda federaalka ah ay ka dhabayso wada hadallada walaalaheen Soomaaliland si waafaqsan qodobada dastuuriga ah madashu waxay aaminsan tahay in dastuurka ku meel gaarka ah uu yahay midka ay Soomaalidu ku heshiiyeen raalli ahaadaya qodobka labaad meeshan ka maqnaa asoo raalli ahaad waa halka hoose ku qoran yahay raalli ahaadaya qodobka labaad waa sareynta dastuurka qodobka koowaad waa tan sheegay midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed qodobka labaadna waa sareynta dastuurka madashu waxay aaminsan tahay dastuurka ku meel gaarka inuu yahay midka ay Soomaalidu ku heshiisay la iskuna raacsan yahay oo dhaqangalka ah kaas oo ay ku dhisan yihiin dhammaan hay'adaha dastuuriga ah sidaa daraaddeed laanta fulinta waxaa waajib ku ah dhaqangalkiisa dhowristiisa iyo dhammaystirkiisa madashu waxay ku dhaliilaysaa laanta fulinta ku xadgudubka bareerka ah iyo ku dhaqanka dastuurka ee soo noqnoqday taas oo shaki gelinaysa in laanta fulinta ay aaminsan tahay dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla madashu waxay diyaar u tahay inay ka qaadato kaalin mug leh sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka ku meel gaarka ah kaas oo suurto gelinaya isku haynta ummadda Soomaaliyeed qodobka saddexaad ilaalinta xuquuqda asaasiga ah iyo xurriyadda muwaadinka madashu waxay u taagan tahay dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda asaasiga ah iyo xurriyadda muwaadinka waxayna ka soo horjeedaa ku takrifalka awoodeed ee dawladda ay ku kacayso iyo aburinta muwaadinka Soomaaliyeed madashu waxay aaminsan tahay in la ilaaliyo muwaadin kasta xuquuqdiisa asaasiga ah ee dastuurku tilmaamay kuwaas oo ay ka mid yihiin ku biiridda iyo abaabulka ururo ama xisbiyo siyaasadeed soo bandhigista ra'yiga xurriyadda hadalka saxaafadda iyo hal abuurka cilmi baarista ka qaybgalka kulamo ama banaanbaxyo nabadeed iyo xurriyadda dhaqdhaqaaqa madashu waxay diidan tahay falalka gaboodfallada ah ee ay ku kacday dawladda muddadii ay jirtay haddaba si looga hortago soo noqnoqoshada ku xadgudubka xuquuqda asaasiga ee muwaadinka Soomaaliyeed waxay madashu difaacaysaa xuquuqda muwaadinka iyo dhowrista xurriyadda asaasiga si waafaqsan dastuurka qodobka afraad oo ah siyaasadda loo dhan yahay loona siman yahay
sida ku cad qodobka koowaad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka ah dowladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaal oo dimuqraadi ah kana kooban laba heer oo dowladeed si waafaqsan qodobka 48aad qodobka 50aad qodobka 51aad qodobka 120aad iyo dastuurka kumeel gaarka ah oo ku qaybsan nidaamka xisbiyada ku qaabaysan nidaamka xisbiyada badan si waafaqsan qodobka 47aad ee dastuurka kumeel gaarka ah iyo sharci lambar 19 oo ah sharciga xisbiyada siyaasadeed dalka oo soo baxay 27 Juun 2016 madasha oo ka amba qaadaysa qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan waxay adkeynaysaa in siyaasadda loo dhan yahay loona siman yahay suurtagelinta doorashooyin 2020-2021 ay tahay mas'uuliyad wadareed ay wada xaajoodkoodana dhammaan ka wada qayb galaan dhammaan dawladda dhexe dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka xisbiyada siyaasadeed bulshada rayidka kuwaas oo udub dhexaad u ah qabsoomidda doorashooyin qaran oo hanaan hergelin daafuran si aqbalaadda natiijooyinka doorashooyinka ay u noqoto meel mar looga fogaado qalalaasa siyaasadeed sidoo kale si doorasho wadar ogol ah ay u suurto gasho waxay madashu ku baraarujinaysaa guddiga doorashooyinka qaranka in uu ka madax bannaanaado xukuumadda iyo xakamaynteeda siyaasadeed kuna shaqayso ilaalinta dimuqraadiyadda iyo daafurnaanta sida ku cad qodobka 110aad iyo qodobka 111aad G xarafkiisa G ee dastuurka kumeel gaarka ah madashu waxay aaminsan tahay wada shaqayn iyo iskaashi dhab ah oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka si loo xoojiyo siyaasadda loo dhan yahay loona siman yahay isla markaasna suurto geliso doorashooyin daahfuran qodobka 5aad arrimaha doorashooyinka 2020-2021 marka la eego sooyaalka siyaasadeed ee dalka 20 sano la soo dhaafay doorashooyinku waxay ku qabsoomi jireen waqtigii loogu talagalay iyadoo awoodda dawladeedna la isugu wareejin jiray si sharci ah oo dimuqraadi ah oo nabadgelyo ku dhisan dhaqankaas siyaasadeed wuxuu gundhig u yahay hanaqaadka dimuqraadiyadda iyo dawladnimada Soomaaliyeed haddaba si loo joogteeyo dhaqankaas wanaagsan waa in doorashooyinka qaranku ay ku qabsoomaan waqtiga uu dastuurku u asteeyay si aan dib u dhac lahayn waana inay noqdaan kuwa daahfuran oo taladoodu laga wada qayb galay sidaas darteed madashu waxay caddaynaysaa in aysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah hadda jira isku day kasta oo loogu gogol haaraayo muddo kordhin ama habraac doorasho oo keeni kara boob ama ku shubasho taas oo horseedi kara burbur ku yimaada dawladnimada curdanka ah qodobka 6aad ilaalinta nidaamka federaalka sida ku cad ama sida uu qabo qodobka 3aad farqadiisa 4aad ee dastuurka kumeel gaarka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan tahay mabaadi'da asaasiga ah ee awood qaybsiga nidaamka federaalka wuxuuna u baahan yahay in si dhab ah loogu dhaqmo lana ilaaliyo mabaadi'da dastuuriga ah oo ay ka mid yihiin wada shaqayn ku dhisan iskaashi iyo tala wadaag sida ay tilmaamayaan qodobada 50aad 51aad 52aad 53aad iyo qodobka 120aad ee dastuurka kumeel gaarka ah sidaa darteed madashu waxay xoojinaysaa nidaamka federaalka iyo mabaadi'da dastuuriga ah ee wada shaqaynta labada heer dawladeed jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba si loogu guulaysto wada shaqaynta labada heer ee dawladnimo waa in la soo saaraa heshiisyo iyo go'aano siyaasadeed kuwaas oo hagaya siyaasadda loo dhan yahay dalka isla markaana tixraac u noqonaysa arrimaha soo socda dhammaantood mudanna in hortabin u leh waqtiga ku harsan muddaxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee hadda jira hagaajinta xiriirka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe B dhamaystirka dastuurka C hanaanka doorashooyinka 2020-2021 D dib u habaynta iyo federaaleynta nidaamka garsoorka E kala wareegidda mas'uuliyadda amniga ciidamada AMISOM iyo sugidda amniga dalka qodobka 7aad arrimaha amniga sida ku cad qodobka 126aad iyo 127aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ciidamada qalabka sida waa in ay ka madax bannaanaadaan arrimaha siyaasadda una istaagaan la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga guud ahaan dalka ilaalinta badbaadada ama badbaadinta shacabka Soomaaliyeed madashu waxay ka soo horjeedaa in ciidanka ammaanka loo isticmaalo arrimaha ay ka midka yihiin caburinta
siyaasiyiinta iyo oodidda saaxada siyaasadda cadaadinta iyo caburinta saxafiyiinta iyo warbaahinta madax bannaan c xayiraadda iyo ciriirinta dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo isku socodka bulshada d xarigga muwaadiniinta iyo ku-haynta xabsiyada ee aanan loo marin hab sharci ah e joojinta hannaanka gurcan ee qorista ciidamada qalabka sida ee hadda socda oo ka soo horjeeda hab raaca dawladnimada iyo ciidamaynta qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka 8aad maamulka iyo matalaadda gobolka banaadir madashu waxay garwaaqsan tahay in gobolka banaadir uu yahay xarunta caasimadda u ah qarankeena taasoo hoy u ah dhammaan xarumihii hay-adaha dastuuriga ah ee dalkeennu waxayna bogaadinaysaa ugana mahadcelinaysaa shacabka gobolka banaadir kaalinta ay ku leeyihiin dib u dhiska dawladnimada iyo bixinta canshuuraha taasoo ah isha keliya ee ka soo xarooda dakhliga dawladda federaalka marka laga reebo kaalmada beesha caalamka madashu waxay cambaaraynaysaa kana xun tahay xadgudubyada joogtada ah loo geysto xuquuqda muwaadiniinta ku dhaqan gobolka banaadir kuwaasoo dhibaato ba'an kala kulma xirnaanshaha waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka magaalada taas oo hoos u dhac weyn u geysatay dhaqaalaha gobolka sidoo kale dadku ku nool caasimadda Soomaaliya iyagoo la tacaalayo dhibaatooyinka ay u geysteen argagixisada waxaa u dheer dhibaatooyin amni iyo dilal qorshaysan ugu dambayn madashu waxay aaminsan tahay caasimadda Soomaaliya inay ku dulman tahay matalaadda siyaasadeed dhismaha golaha deegaanka ka qaybgalka baarlamaanka heerarkiisa kala duwan gaar ahaan aqalka sare iyo sida uu tilmaamayo qodobka 72 aad iyo aad u mahadsantihiin